marka hore Soomaaliya Allah mahadle marka xigtana waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta ay tahay bishii sagaalaad 2020 waxaan rabaa inaan ka warramo hal qodob oo shalay media ku arkay. wasiirka shaqaalaha Hinda oo loo soo diray gobolka Awdal, markaan hadalladeedii dhadhansadayna waxaan ka arkay in fariin loo soo diray. hadalladana waxa ku shuqul lahaa waa Muuse Biixi iyo ninka ina kaahin la yidhaahdo iyo wasiirka amniga. waxay halkaa ka sheegtay in nabadda la ilaashado oo nabad iyo caano ay wada socdaan. waxaa kaloo halkaa ka sheegtay inuu yahay gobolkani gobolkii aqoonta oo wax kasta lagu sixi karo qalin iyo buug. in budhka la iska dhaafo burcaa lagu yaqaanaaye waa runteed wasiiraddu inta ay sheegtayba. mid waxaan kaa leeyahay nabadda iyo caanaha. markaad nabadda eegto, markaan anu taariikhda kuugu noqdo, dowladda ingiriiska wixii nabadda kula noolaa annagay ahaayeen ee caqligayga maalayay. dowladdii Siyaad Barre allah u naxariistee nabad baan kula noolayno caqligaygaa maalalay. dowladdii ingiriiska dowladdan 91kii la dhisay caqligaygaan maalanoo kula noolayn. nabadda annagaa jecel, nabaddana annagaa gacmaha ku haysana. waxaa ku dhaatee naga maqan waxa weeye hal reer iyo caanihii wada cabay. madaxweynuhu waa iyaga, ka cadaaladda joogaa waa iyaga, ka generaalkeyga waa iyaga, ka wasiirkeyga waa iyaga, ka wax kasta oo waddankaas soo galaa gacanta uga galaa waa iyaga, ka baayic mushtarkii waa iyaga. marka caanaha dhinac loo soo duwo, nabaddu markaasay shaqeyn yaan leeyahay. midda kalena waxaan kaa leeyahay qalin iyo buugga. malaha madaxweynaha iminka joogaa waxa ma akhriyaan u malaynaya. ilaa 2005 ilaa iyo maanta odayaasheedu way yimaadaan. dee kolley waxbaa la qoraa baan u malaynaya. madaxweyneyaashu waa inay qoraan wixii u yimaadaba. dadkayagu waraaqay soo diraan oo doosiyay ka soo buuxiyaan. haddaad rabto Facebook iyo meel kastay ka buuxaan oo meel kastoo media ka buuxaan waxa dadka xukuma inay hal qabiil yihiin. marka wixii intaa ka dambeeyaad ka socotaan waa indhala-aan baan u malaynayaa. adduunyadana waan ni daawananaa. 2020kii baa la marayaa. indhala-aanina idinka socon maysaan ina leeyahay. marka haddaba hal dardaaran baan ni siinayaa maanta ninka Muuse Biixi la yidhaahdo ee gabadha soo diray. war muusow, ninka la taliyaha ku ah baan maalin ka daawaday meel isagoo ka hadlaya ole waxaan ka soo shaqeeyay Iraaq, waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan sheeganaya. war shaqadaa uu sheegtay haddii aad hayso waa ka soo bixi karaa, waa ku fiican yahay. laakiin la taliyaha nin wax og baa la taliya laga dhigtaa. war iska bedel baan ku leeyahay, iska bedel baan ku leeyahay. jar buu kaa tuurayaa, jar waana lagu soo degdegaya. midna waan u sheegayaa ummaddan wareegasay waddanka ee wax saxeexasa, nin kastooba uu kugu soo noqon doonaa saxeexaasi. adaa ka mas-uul noqon doona. adiga iyo ka mas-uul noqon doona. waddankani waa waddan sovereignty Soomaaliya isagu isku xidhan yahay. adaa ka mas-uul noqon doono. maxkamad baa lagu keeni doonaa. waan salaamaya Soomaaliya meel kastoo joogtaan. Soomaali waa Soomaali, wax kala go-aan ma jiro. wixii kala go' ka sheekeynaya waa shaytaan.
shaydaanka in layska qabto ilaahayna soomaaliya isu keenan lehna waan islaamaya